tali annaga howlgalkeenna waa ku guda jirnaa taargetkeenna ugu weynna waa ninka lagu magacaabo xafiis raadintiisana waxay nagu qaadatay muddo 4 sano ah ugu dambayn dagaal ay ciidanka iskala hor yimaadeen ayuu ku dhaawacmay markaas ayuu meel tuulo ah tagay dhakhtar meeshaas joogay ayuu afduubtay si uu u daaweeyo waxaa hadda loo xil saaray qolo ciidankeenna ka tirsan oo uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo raam tali midda kale waxaan kula socodsiinayaa kabtan raam waa ninka ugu firfircoon ciidanka waana nin hawshaas ka soo bixi kara sidaas darteed ayaan asaga ugu xil saarnay tali indiya noolaad howlgalkan waxaa loogu magac daray xornimo taasoo magaalada looga sifaynayo burcadda howlgalkanna waxaa hormuud ka ah kabtan raam waa nin haliye ah geesina ah howlgal markii uu ku guda jirana noloshiisa iyo geeridiisa waxaa u dhexeeya farqi yar ciidamadeennana waa ciidamo loo carbiyey si ay burcadda ula dagaalaan howlgalka ay samaynayaanna kama soo laabtaan naftoodana kama naxaan hadalkayga si fiican u dhegeysta si dhow maalaysi ayaan gudaha u gelaynaa dadkeena u soo badbaadinaynaa waaya tali amarkaada jiro Fanbroj.com صلي لو برعت كمية آياتني عرفت كلو فرحت لي أمكوها أنا واحد ساي أجن هذا أجوجنا دن سكوير أنا جاي حيسنا وحول بنا سيد الله ترى لا يولعين هو بكحتك عنتي لا يوكشرا واكب واحد سلي مي مقشان وده هوس سيدا دحيس ayaan helay hoosaan u sii deganaya tali bsaraaca maya meeshaada taagnow meelaha kale barbar cadowgan naga ilaali waya tali
aamusa nin ciidan ayaan ahay badbaadadiina ayaan u socdaa firi howlgal ayaan ku jiraaye ninkan maragti xaggeen ka heli karaa waqtigan okay aamusa waa idin soo laabanaa askari intaan arkay nin ka doqon sawli ma arkin war naftaada ma waxaad halis u geliso dadka inaad badbaadiso war meeshaan annaga u talina weligeena waan u talin doonaa haddii aan u dhimanna xataa diyaar baan u nahay balse maanta halkanaad ku dhimanaysaa dadkaana waan baabi'inaynaa ee sidaa doonta u dagaalan hubkaadana hubkana ku soo darso waan ku sugaynaaye abo marka hore adiga ayaan ku dirayaa kadib ayaan dadka kale kaa soo daba diraya bartaada taagnow taliyo kabtali ninkaas asaga oo nool waa aad keeni kartay awooddeedana waa lahayd balse sababtaa u dishay ma ii sheegi kartaa arrintaas oo faahfaahsan ayaan kaa doonayaa ninkaas haddaa nolosha ku keeni lahayd warbixin badan ayaan ka heli lahayn taliyo ninkaas wax caddayn muusan haynin midda labaad wuxuu isku dayay aniga inuu dilo nafsadeedaan difaacay waana dilay kalsoonida aad arrinkaas iigu leedahay muxuu yahay ii sheeg bal mesaj ayaa wax walba laygu soo sheegay laguna soo diray mesajkaasaan rabaa taliyo waxaan kuu sheegayaa dadkaas dhulkeena si xoog leh inay ku soo galeen haddii aan sidaas uga aamusan lehna taa micnaheedu waxay noqon lahayd anaga inaan laciifnahay balse waxaan tusinayna geesinimadeena iyo dhulkeena si walba inaan u dhacsan karno maxaad ay rabtaa adiga ma waxay kula tahay dadkaas duulaan kale inaysan soo qaadeenin ii sheeg middaas hadday doonaan ha soo qaadaan anaga kama dhimin midda kale mesaj ayaan u diray waxaanu ku dhahay weerarkiina ka hor ugu horeyn waa inaad xisaabta ku darto kabtan falaarigilgilisho kaaga ma harto baaritaan ayaa kugu socda ilaa baaritaankaas aan meel uga soo ogaanayna ma ka haraayo kiiskaaga waa igu ballan middaas taliya aniga waxaan ka soo jeedaa dalka indiya waxaana caway webiga gangaa biyihiisa waddankayga waa nolosheeda wakhti walbana waxaanu taaganahay inaan dalkayga dadkayga difaaco hadalkaagana dhiirigelin ayaanu arkaa maxaad ula jeedaa su'aal walba aad weydiinaysa diyaar ayaanu tali jirkiisa habka uu dhisan yahay socodkiisa hadal macaanidiisa aniga waabay dhex qaadayba aragtidii ugu horraysa ayaaba jecel degdega i galay ru'aanti wax yarsug nin ciidan aad ka hadlaysoo maaha haa kabtan raam adiga yaa ka hadle qoftiyada eedno inaan baasuuka iyo qarxayn balaalayda tviyada ka jirta laakiin hadda si toos ah warkoosaan ku dhahay adiga gordon kugu soo biiri doonta wax ma ka halaabi doon sida eelata soo sax ma saas miya aha aniga mujad caashiq ayaaba dhexda ka dabaalanaya nafteedan asiga ayaaba u dhiibay يا صاحب خريصة بلاد فليش يا كو غبني أسي حتى ولا هاي أنكو ده يا هاي تاين هذا نجعلها وانا كيلا انيغا إن قرصدنا ما أبو أتصر ما لازم شو قبرت أنا وحا مهمية قلبي سواحا كجرو إن أن أقاذو هاي نفسنا إذا كم يا هوري وارك أنيغا قلبي خاص ما دبلها أنيغا وحا ربا برينان جعل كيغ وشيكتو أنا كباقين شد الآن ولا ناحا شمبرت برياهان أنيغا شو ذا مو بوين شفك إسار I love you كا خوب صورة كجيرار كا هي قبرت مركي واحد ودي بتعمل وما ليس تيتين تاسان كبقوا ما يملو ملا أي دوي أدنى ما جاكي تعال تتركك كوعوي أي نصيب عنهم كلها نصيب عن هبسي كرتون كيسوكا كوسون هي بيلا إن قندسة إذا هس مركا كنيان واسي وحسي no problem أنا عربي دي سدوا أنا هاي عربي دواتن نكب
لما ساعة بعد وفيه بها وده خوف كم دكتور جاكي أبو ما صنتهاي هي شمرت أنا بس حتى مرة ودتك واحدة بالي أنكو ده عربي تو كده بايس كده فاديس كده في ساعة ملواش أنا بعربتي مودي سوا يا أخي ورد ترى نندني بكان أي كداشي يعني داوي مكتئب وراد مراي مسكفير صرت أضو قبل قدي وأك قبل تصل تاميا مسارة كوهايا وريا هوي أديك نفتر كاغا وجي كاغا رقبتي وأجمل وخاذني نو لندريتي تورس واي أنا كالي عساي ما نقول لك مي جديدو هذا هرت السود داوي هو داوي سنة أديك مسارة كوهايا خلبي إنجليزي كوالش أنا فرنسيسا كوهاد لا موجدو كالي محاواي سلام كسو حرق شاء إذن شيء يا من حد شعير كنفته وأهلس كانوا قد يديكوا قارسية نبرة إنه نار كلية جيكي يدي مرك إذن وإيماي هبل إسيه براو هاي وانكو سلام كاس موجودة إسقاط قاعدة سوى جراشين برتا هاي دنت هذا ما حد يشي قلت أنا waxaan rabay تلي أكسلام وكا قاضي inaan ku هاي صلي وك سلامي ولا قاضي إيه ulajeedada halkan أبوتي وكنت ريم كلا عندنا عسول استاذ أي هاي adigoo raalliya hal sawir ma kula geli karaa سبب لكن maadaama aniga wadani ah adigana aad tahay qofka waddanka difaacaya waan jeclaa inaan sawir kula galo kadibna اوكي صبر دان كله قال ودنimada masiisiyadii زائد weliba اوكي aha انا سهل okay facebook ayaan dhigayaa waxaan ku dul qoraa mataqaanaa sawirka waa nin wadaniya nabadaad ku seexataan dadka ka dambeeya waayo annaga aflaata ka saacna waardiyeeyo anigoo kaliya dalkayga ma jeclay dad badan jiro oo dalkoodan jecel جلينك waxaas ku darsaday bas warku waa dheereeyay لكن ما حكرتها في هذه قبلت أصابك دربه إيه سأسوأ ديري قبلت وقابنتها أنا عملها أطور نمط لا واينه أطور نمط كاس أطور تسنخ أنا واسدي لها نقول sidaadoo kale aniga badalkayga waan ده jeclaa هذه أنا قاعد كاس أطور أسير دبر كاس كجيبيها نقول qof dalkiisa necab ma jiro adigana wadani ayaa tahay gartay aan heesta wadanka oo calanka loo saaro haa waan aqaanaa si fiican ma taqaanaa subax weli baan qaadaa haa hadda hees hay isla hadda ma rabtaa inaan qaado ha hadda ii qad hadda ha qad calayahow dartaaba boqolaal maxay ahayd bas intaas ay ugu filan ii dhiib teleefonkaaga hay howl hadda waxa doonta waa qoran kartaa قبت سيركس aan ani adiga farqi weyn ayaa noo dhaxeeya دولو ما أنت أنا كنت جستي وحبذا ما يكون جستي ما يا أبو وبسلامة إلي نقدتك سودو مقع يلي جبيك نوع أنت بقى لو دبادة كله سود دبادة jeki هاي hoo ii qabo أي استوتوسيوسا كربوت waan idin salaamay waa lagaa qaaday ma istaagi karta adigoo raalliya wax yarna istaagtaa rabaa okay hay maxay samaynay aboo jeki أباي kaahay ياهو جعلك بلاوي سنة الاسكوع أبا ولي وعي يعني واتقوها يا أنكو ده خلبي يجي كجرن وشيء أي خبو أبا ما صوت صعدا نياس هاي يقول عليه يقول نياس الله يكرم أبي حياتي روحي adigoo raalliya dhagaxaas mii soo qaban kartaa أنت حامية أوكي درت هذا واحد بوصمي واكنا excuse me وأوجيدا وأيقودات سنتين هو دون ورينو عدوى من كان أسيق أنا كوباهني أنا وكسوغا لكن
الى سوق القيامه نقول نو بروبلم لاف لاف جعل اوكي باي 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 عيسده वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् وحبالي في فيرني نندني أنا أمر لأنت إذا لقى حتى ما أسكرت موكتا هذه كيف فربوت aniga inaa waddani ahaaso hadda ma xaqiiqsan cod macaan badan ayaad leedahay aniga heesaa waddaniga inaan qaado aad aan u jeclaa laakiin maalin sikadiisa igu weydiisay marka xisho dartiis waan qaadi waaye waa iga dhudhuntayba heestaha hadda waxaan rabaa hal sawir inaan kula galo shalay soo kulama gelin kaas waa saarayno maanta mid cusub aan rabaa oo hada cusub aan ku dul qor fiirba horta meeqa laag meeqa commenti sheerka xataa si fiican u fiiri commentigan maxaa ku qoran sug bal abo anigaa laga hadlaya abo jeke sugsugiya waa salaamna jeke ambaniya tani godo araskada dheerba aroskeyga yaan guursanaa anjeliin noo seemay anjeliin ma guursanaa oo runtaadu waa sax guurkeena ayaa dhacay sida caadada in aroosyada kale sida loo dhigo hotel Taj Mahal ama Five Star lagu dhigay 200 qofood oo martina waa casuumay chocolatadana waa la cunaya hadhow baashaalkeena keenayna mid kale adiga raashinka Punjabka aad jecleedna waa ku diyaariyay runtaa ma diyaarsaybo beelaba marka arooskada ka dhaxay qaabada adaa laga rabaa aniga iga rabnaa tali आपके लिए लेकर أرد ورقة ورقة صعبتها سوقتها مريا أنا قريبا يسيكون عقد ما سنت واتيكرتا الناس كانوا ورقة على جسدي سعيمة نو عقد سعين واي فما نو عقد من ثانية رجس صديق قيلي اوكي fanbroch.com 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 maxaa meeshaas ka dhacay way iska caddahay inuu ninkaas isdilay walaalkay doqon ma ahayn cadowna ma lahayn anoo intaas og inuu isdilo lagama yaabo ee wax jiray ii sheeg raam aniga wax walba waan dareemi karaa waanu ogahay xaaladdaada aniga walaashay ayuu qabay baaritaanka markii la samaynayana waan joogay waxaasne
wax iska cad ayay ahaayeen in qof kale loo raadiyo aniga ma loo sheekada inaad ii gasho halkan uma joogee waxaan kaa doonayaa xogta dhabta meeshay taalo midda kale su-aasha markaan ku weydiinayo hamoodin codsi aan adiga kaa codsanayo ee xaqiiqda ii sheeg mudane warqad fasax ayaan maxkamadda ka sidana gurigaan inaan burburino marka noo ogolaaho nacnacda aa meesha ku haysta kala tagaan ku dhaha haddii kale qoorta ayaan kaa goynaa anigu waxaan u baahanaa ninka ragga ahay oo meeshaan dhisi lahay oo weliba aniga horteeda imaa lahay yaa anu ka dhismayno burburimaynana nin askariyaa jiraan ku dhahay askarigan buu u baahanay waya waxaan walaynaa mininkaa markii joogtid xidiga badan kor waa ku aragtaa laakiin xidig dhulka soconay ma aragta jawaabta waa maya qofkii musuq maasuq ku socdo qofkii dulanku socdo intaba waa daadiyaan ku dheh yaa noo yahed adiga ii sheeg waxaana inaan kuu sheega looma baahno warbixintaydan inaad ogaato muhiim ma ahan sidaas ayaan u arkaa aniga okay nafsadaada ma ugu soo gurguris inaan madaxaa goy martaa waan aqaanaa waxa aad tahay dadka ayaad dhulka ka xogdaa kadibna waad dhisataa hee dadka maxaa u tiri kartaa adiga maxaase dhaantaa ii sheeg awooddaa haysa haddaba soo daa sidee wax jira war maxaa ku dhaca maxaa samaynaysaa war hoosh ka tarbiil mayaneedan tabartaada baa ku tusid maxaa samaynaysaa 5 sano ayaad meeshaan joogtay awood aadan lahayn ayaad isbaday bal ka waran anigoo 58 meeshaan jooga awood noocaan yeelan karaa marka iska jiraan ku dhahay askari hatani ninkan wuxuu isku dayay howlo sharci ah inuu hor istaago marka waad xiri kartaa waad ka shallaanaysaa arrinkaa ku dhaqaaqayso waxa shallaaya qof howlo qaldan ku socda aniga wax wanaagsan ayaan samaynaya maxay tahay shallaayda ii taalo bannaanka le aan soo baxo waryaa iska jira haddii mar dambe afkaada igu soo tagto carabka ayaan kaa goynaya bannaankan oo kaa soo dhigay askari hawshaada qabso soo kacabaale soo istaag maalmo kadib ninkii jaalka ayuu ka soo baxay toos wuxuu soo aaday gurigiina buuq ayuu ku furay war soo bax shalayda dhah ma dhaafaayo aniga gebi ahaanba kulli waxa guri ku jira hallay soo baxsha aniga war idaaya ma dhaafaayo wuu xanaaqay kadibna ninkii ayuu aaday weliba asigoo caraysan qof celisana waa la waayey dhiiggiisana wuu kacsanaa xanaaqiisuu ka tanbatay ayuu ninkii bistoolada ka dafay kadibna wuu dilay booliskana guriga ayay ugu yimideen kadib way xidheen anigana sidaas kuma sii fiirsanin xabsiga ayaan ka soo damiintay guriga ayaan keenay maalinta labaadna wuu isdaldalay naftana wuu isdhaafsiiyey kiiskan gabi ahaanba waa la soo afjaray riboodkana waxaa ku cad ninkan inuu asiga gacantiisa isku dilay adiga maxaad ka leedahay aniga waxaan waa walaalkay inuu isdilna oo la dilay hadal aan waxba kuu kordhinaynin inaad isku mashquuliso waa laga fiican yahay ilaa hadda qolkaas caddeemo way yaalaan macnaha macnaheega midda koowaad qolka shilka uu ka dhacay daaha ku surnaa waxaan ka wariyey shiir xashiish ah caddaynta koowaad aan haya ayaa middaas ah qofka maandooriyaha qolkaas ku cabbay dherarkiisa waxaan ku qiyaasi karaa 62 ilaa iyo 63 midda kale qolka walaalkay waxaa dhex yaallo kursi isbuunyo ka samaysan markaan fiiriyena oo aan qiyaasay waxaa kursigaas ku fadhiistay qof cabbirkiisa aad u sareeya ama qof dherarkiisa sareeya qofka kursigaas ku fadhiistay culayskiisa waxaan ku qiyaasayaa 100 kiilo walaalkayna sidiisa dabeecaddu ma laha dariishada agteeda inuu fadhiisto tan kale oo ah caddaynta saddexaad walaalkay kombiyuutarkiisa fara miyaa laga helay kuwiisa mise kuwa kale
kombiyuutarka markii la baaraya far lagama helin sabab waad qaldantiin haddaba walaalkay maadaama kombiyuutarka isticmaali jiray waxaan idin sheegayaa qof burcada inuu kombiyuutarka isticmaal kadibna uu fariisa meesha ka masaxay ilaan faro meesha kama muuqdaan tali midda kale waxaan ku su'aalayaa xariggu walaalkay isku daldalay si fiican ma u fiirisay habka loo xiray qofka xiray waxaan kuu sheegayaa gacan bidix inuu isticmaalay walaalkaygana ma isticmaalo gacan bidix siday iga hoos baxday aniga calaa ayta xaal waxaan kuu sheegayaa dad boolis ka mid ah inay dembigaas dabooleen qofku ahaadaba qaladka noocaas sharciga inuu ka ilaaliyo ayaa loo baahnaa laakiinse anigaan ka daba harayn gacantana ku soo dhigaa meel walba oo iga galo isma dhaafin raam arrintaan ani iddaa aniga ayaa meel soo saaraayo waana igu ballan haddaba si fiican ii dhegaysta waxaan u baahanayaa kiiskiisa tiyaa in dib loo furo anigana laygu soo wareejiyo middeeda kale inta xabsiga ku jirto oo dhirirkoodu yahay 62 ilaa 63 waan u baahanahay hawlal doctor Rabinger aan rabay doctorka hore waa si okay halkaas soo ma san ya shuk saada raam wuxuu baadi goobayaa doctor Rabinger soo soo socon ku dhahay aan igaraan noqo Rabinger ha loo buriyo fasax qaatana waa la gacan galay aqal gal maahan be asiga naftirkiisa waay socda gambista abo ها هاي ايوه انت maxaa soo daantayne qof aan u meed doctor Rabinder hay ma la kulantay ma qof ayaa wuxuu yiri ma jiro been waay wuu joogaa dadka la boojeenay ma kamid tahay hadda ma soo arkay ma goobta aha sabaxna kan anoo soo tusaaye waa kana wuu joogaa soo kuma dhihin tiktor satiyaaga ciidanka la dilay walaalkiisu waa ninkan adigoona ku yimid walaalood kuma santahay laakiin sare ma gaar ayaan kale xogay okay wax weyn ma waa fariisan kartaa ma fariisan karaa masan walaalkay Sati Kumar dilkiisa adiga ayaa riboodka diyaariyay riboodkaasna waan arkay maxaad ku hadlaysaa mid ayaan kuu sheegayaa qof haddii uu isaga isdaldalo dhuntiisa waxaa ka muuqanaysa calaamad viya laakiinse si cadaawadnimo haddii loo weeraro dhuntiisa calaamad oo ayaa ka muuqanaysa walaalkay dhuntiisana oo ayaa ka muuqata dil ayaa loo geystay maxaad ka leedahay war heedhe wax walba afkaada ka soo bax macnaheeda maaha inaan ribood ku qoro aniga runta ayaan kaala hadlay adigu haddaad ciidan tahay saldhigaada tag xaggaad ciidanka tahay khudbadaanna xiradaad ka talisa ayaa looga baahan yahay riboodka kani waxaan soo diyaarinay baaritaan dheer markii aan baarnay adigu dood iyo dacwo haddii aad qabto saldhigga booliska waa inaad tagtaa anigu jaanis kuma hayo waxaana nin shaqo badan soo istaag gedhaaf ii safira dhexdiisa adigan wax ii sheegan ayaan wax badan kaa dhegaystay goordhowna wuu kuu soo laabanaya saas miya iga lexda maxaan jiraa kaale هاي بلا سو كنت تكتارك ها ولا سو كلمة أي شكل أنا حدود لما كوجاي هاي دبالي واجرين يعني إن كان إسبتاع حاسس السنة إن كان صاو خرح بدل ما جرو كنت المامة جن أكو داعم حين لا محكا كلام خرح يجرو وإسليه دبالي وإن كان واجرين أنا كده على شحنونا على شحنونا جرا هذا حاسس ده تاه ninkan wax uu ogoleena malena gabartan ninkan waa isfaansiin ad maxaa ku taar telefonkaaga lambar ay number ay weydiisi telefoon ma isticmaalo okay way adresska gurigaaga isii waayahe ha guriga hore waaba ka guri rabnaa guri kale aan wareegi rabnaa fiir mar number hadii la weydii kadib waa la isbalansana shopping la sameeyna aroosa dhacay ad meesha maxaa ka qabanay calan wada ma kana qanay sheekada waaba dhamaatay oo ujeeday afkan balaarka shibiga si guriga kale aad degi doontii ciwaankiisa ii Kenya balan waay dadka indhay kooy
laakiin أنا لكن أنت جوجا مركز توجو بايا askafata hado u dambaysa u jeekeeyo gabadhayda maxaa la ooynaa gabadhayda aabahay qofxan miyuu ahaa yaa ku dhahay dadka bannaanka joogaa ku sheekaysanooya adeer ii kaale ii kaale halkan soo fariiso adeer halkan okay abbaa arrimihiisa yaa si fiican wax ugu og aniga si fiican adiga lemiya hooyana aniga uga fiican hooyada anigane anna adiga xataa aniga kaaga fiican adiga iga fiican miya abbaa inuu wanaagsanaa adiga og soomaa dadka kale waxay ku dhahaan dhagaha u dhigin abbaa gees ayuu ahaa dadka dartooda u dagaalami jiray xaqooda u soo dhicin jiray qof la mid ah inuu horay u jiray iyo hadda kadib inuu soo baxay ilama aha marka qof walba oo abbaa wax ka sheega adiga dhagaha u dhigin micnaa superman miyuu ahaane superman waaba ka sii darnaaba adiga haddii aad ogtahay abbaa qof wanaagsan inuu ahaa dadka waxay doonaan ha ka sheegan murugtiiska daa wax walbay dhammaanayaan walaal waan dareemi karaa dhib in laguu geysta dumaashi waxaan kaa doonayaa maalmihii ugu dambeeyey walaalkay arrin oo la murugsanaa miyaa jirtay ama qofay isdagaaleen ama qof cadaawad kala dhexeeyey ama arrin oo asaga maalmahaas la murugsanaa miyaa jirtay wax ii sheeg dumaashi arrimaha darawal kaliya gabadhiisa ay wax ka ogaa maro waa ku salaam waa kaa qaada kista waxa way gabarta isbitaalka ka keenay noo haa xilli fiican aa keentay soo sax maaha xilli fiican ma imaanin oo naqasay sii fadhiistay ka faa'iidayso sameynaa ay gabadheeda waa ku salaam kaalay sax u tag bari kaalay sidee wax ku gaareen ii sheeg xalaya dhan waa xanuunsanay baba dhinacyada maxaa ka fiirinaysaa gabadheeda sidee wax u jiraan ii sheeg gurigeena maxaa u weeyaa gurigeenana oo u yar yahay ii sheeg mitaasba shukr ababa darawal ay markaas guri weyn damci miya amsure gabadha sidan maxaad ula hadlaysaa gabadheeda taas way fududahay adi guri weyn rabtaa soomaa gurigeena geediiso an ii hooyada iyo aabahay bes soo qaada qof kale ma qaado dhalashadeeda haddii la gaaro xataa asxaabteeda markay imaadaan guriga cariiriyo ku yahay laakiin gurigaana kale aad u weyn yahay sidan haddii aad rabto marka hore ciidan ayaad naqanaysaa kadib saan naqanaysaa haa adiga waxbarasho waad jeceshahay soomaaha aaba soo uma jeeda adeer wuxuu dhahay markaa mas-uul noqotid ayaa gurigaanoo kale helaysaa kadib guri weyn haddii helo dhalashadeeda adiga dhalashadaada dhalashada hooyaday kulli gurigaasaa ku samaysanayna gurigana ma nagu yaraanayo baaba gabarti habisiikan kadib waxaa akhbaar nagu soo gaartay shankar iyo gabadhiisa iyo xaaskiisa inay guriga isku gubeen halkaasna ay ku geeriyoodeen gabadhiisa kansar ayay qabtay kansar ah haa waana daawey waaye lacagdeenna intuu qaatay ayuu magi waaye sidaas darteed familkii oo dhan wuu gubay naftana way isdhaafsiiyeen shankar iyo reerkiisa markay dhintay kadib wuxuu ka murugooday dhaqaale la'aanta hayso oo gabadhiisa uusan ku daawaysan waaye gabadhaas yargeerideeda ayuu aad ugu naxay habeen iyo maalina welwel ayuu ku jiray ayada keliyaha ayuu ka fikiraayay aaba waxaan maqla qofka haddii uu kansar ku dhaco inuuna daawo weynin ee cilladiisa jirayso gabadhayda hadalkaas yaa kugu yiri ii sheeg habareerka mala ayaan ka maqlay baaba kaali gabadhayda qofka haddii ay duruuf haysato unbuusan badbaadi karin laakiin sabab micnaha waxaan ka wadaa lacag hadduusan haysan saas haddee taa habareerka malaa hadalkeeda saxda qofka haddii uu maskiyan kansar ku dhaco ma iska badbaadi karo gabadhayda sheekooyinkan yar yar aad dhegaysanaysa iska dhaaf orod iska ciyaar waayahay baaba kadib waxa ku dhacay ma aqaano waxaan arki jiray 4 saac inuu kombiyuutar ku mashquulsanaa maalin isagoo guriga ka maqan ayaa waxaa nagu soo weeraray niman aanan aqoonin arrintaas markaa ninkayga u sheegay wuu xanaaqay weliba aad iyo aad arrintaas darteed ayuu ninkaas gurigiisa u aaday maalintii xigtana waxaa inoo yimid boolis ninkaygana way kaxaysteen iyagoo ku eedeynayo kiis dil ah isla markaas ninkayga damaanad ayaa guriga loogu soo celiyey markuu guriga yimid kadibna waxaa ka muuqatay murugo aad u fara badan cun raashinka kaale xaaskayga adiga maxaa dhawax mii weydiinaysid anigoo ku weydiin ayaa qalbigaaga ka dareemi karaa xolbo sabab laakiin adiga sharciga ayaa taqaanaa waana ogahay inaad wax dembi aadan lahayn
murugtana waa qayb nolosha ka mid ah maalin ayay wax walba hagaagi doonaan ee cun raashinka waxaan ku sheegayaan rabaa aamus marka hore cun raashinka kadib ayaan wada hadlaynaa intaan ka hurdayna qolkeena ayuu ku jiray markaan seexana kadibna qolkiisa gaarka ah ayuu aaday subaxii anigoo isdhahaya kafaaga u geey wax buu rabay inuu ii sheego laakiin anigaa waqti siin waaye aada u qurux badan tahay lama filaan sheekadan maxay ahayd sii sheekaysta shaaha idii keena okay waaya dumaashi dumaashi taleefankayga taleefkaa kan soo maaha may kan maaha haye kan waay moo kaale taleefankayga maxaa kuu dhiibay u kaadi maxaad been iigu sheegtay waxaad dhahdaa taleefon ma haysto dhib ma lahan taleefanka hor qadiimi ayuu kugu noqday mid cusub ayaan kuu soo gaday mana xadidna wax welibaad ku habaysan kartaa wuu cusub yahayaa kayga hore qadiimkaan rabaa u kaadi baladi sikalka ceella ayaan wax kuu siinayaa maxaa dhacay may sikalka ceella kugu keentee hadiidan haddii kale way ka xumaanaysaa ka qaado waa ku baryaa dumaashi soo kuma dhihin hadiidan waa hadiyaday qaadano aye maasanid laakiin shaaha caba shaaha waaya dumaashi sheekadan kuma qanacsan fadhiista fadhi wax lagu cabaa shaaxa aad u macaan yahay dumaashi waa dahdan filaa ma socona ay dumaashi macaan waa baxay mar kale nimaanaya taleefankan facebook iyo whatsapp intaba waan kugu soo dejiyey lambarkaygana wuu ku jiraa sawirkaagana waan haystaa ila soo xiriiriyaa waan ku sugayaa okay bye bye raggii dhirirkooda uu ahaa 63 ilaa 62 kulligood waa wada baarnay waxna kama helin taliye dadkan dilkaas shuqul kuma leh maxaa yeelay caddeentooda aniga ahaay markii dilkaas dhacayna agtayda ayay wada joogeen taasna waa kaa hubaa taliye mid kalena haddii aan kuu sheego fayaas cali mooye inta kale halkan ayay joogeen ninkaasoo keliya ayaa maqnaa muxuu maqayaan asigaa raba haddana keen okay waa qabanaynaa waan soo dadaalaynaa waa dadaalaynaa maayn haddaan rabaa ninkaas inaan helo waaya taliye waxba ha ka baqin luuq walboo galo meel walboo galo aniga ayaa ka soo saaraya gacanta ku soo dhigaayo fayaas calina raadina ayaa halkaan imaaday yuu yaha ninkii raadinay sheega فياس علي سوما وريا توري هذيك ما لنا ما بتقدر نيك ولا الكسب دولي dhiiggaaga noociisa oo balas ana oo inta qofoodo dhiigooda oo balas yahay gacmaha kor u taagan ninkan ayaa hadhow dhiiggaaga u baahan doonee dhankan soo baxa kaalay adiga hortay soo istaag wariya anaga ma xaafidina tan ogtamaada noo booteynaysaa say wax ka yiin adiga adima ibsada xaafad gaale maxay dhahday yaa awood ku sii nin geesi ah ayaa hortaada taagan misana awooddiisa ayaad weydiinaysaa mase la socotaa dooliga
gurigiisa inuu bedelo laakiinse libaaxa gurigiisa marnaba ma bedelo ورياضة تبعين على قصة منك يا جماعة ودوم هاي قبتني وديني بانكدين اقرب لك امشي ninkan aad arkaysaa waa geesiga burcadda qofkii burcadda ka mid ah oo laalaab lagu arka iyo khiyaano isaga ayaa loo adeegsadaa si uu ciqaab u mariyo oo u garaaco weliba qofkii uu gacan qaadana meel ayuu saaraa si aan caadi ahayn ugu dilaa aniga sideedaba laba ayaan necbanahay labadaas ma taqaanin qofkii hadalkayga maqli waayo qofkii aniga khiyaanabo hawada ayaan u diraa dunida ma sii saarnaado kaba ayaana ka siyaabo ma noolaan doono madan ani hal san magaalada waa ka maqnaan haddii saas tahay kaalay waryaa horay soo kaagamaanan digin aniga wejigaada foolxumadiisa inaad ii hor keenin ninkii aan ugu shakinin walaalkaa inuu dilay waana laga soo hormariyo tuugada ayaa dishay haa waan ku maqlaa hadda ayaan ku imaanayaa okay middeeda kale kiiskii walaalkaa waxaa la wareegtay si ay diida middaas inaan kuu sheegaya ila habboonaatay sawirkaas si fiican fiir internetka google-ka intaba waan ka raadiyey waan ka waayay soo suurtagal ma adiga inaad meel ku aragto sawirkan intaan ku arkay si fiican u fiir waa kana sawirkiisoo meel dhow aan ka diyaariyey soo xasuus maya fiiri sawirkan intaan ku arkay meelaan ku arkay boosajad maa ku aragtay intaan ku arkay meelaha oo dalxiiska loo yimaad maad ku aragtay bajaaj isagoo raacay maad aragtay intaan ku arkay wax sheeg ها هذا صح استوضدها مالك استمر ماركت أنكو أركي ساسون مليناها وأرك وجهها صباح وصعونينا أنت هذا نيكي يا راديني إنه ما عارف بس حميان كا قادنا إسلا هذا أولي صباح صباح إيه سبب أنت طلع إيه هلو ها waa mashquulsanaa aan kugu soo celiyo
injineer aan noqon lahay dharteedan aniga dhakhtar u noqday laakiin iidana waa igu daadis laakiin maanta hadiida aan sii hay fiiri aniga show us something akhay yes abo waa kugu daadsanta aa ujeedano qoftiina moota lagaaga wataa maanta madax ballaar daawadaada dhan in cambuul lagaaga tale waay lamadiis ma socdo cambuul ma kaagadaye waryaa imoodan ku dhahay adig jecel wax ma ka taqaanin tu qareera ku haya rabuta waaxid mujeedaa jimkan iyo midkaas kale labadan jim midkood ayuu imaadaa maalin kasto haye allora labadan jim hadduu maalin walba yimaado xiriir gooniyaa jiro anfiri adiga ikad abaa aan kugu soo celiyano waa mashquulsanahay ya haye berita maxaa haysaaday beriya hal jim adiga ilaali jim kale anaa ilaalinayo okay ikaadi hal jim adiga ka raadi mid kale anaa ka raadinayo okay mid kale telefonka waa la hadli kartaa caadi waa maantana lagu soo wacay waa iska caadi iska qaado waqtigaaga caadi la hadal waxaa waaye maanta aniga dhalashadayda oh I'm sorry mahadsaned waxbaan ku dhihi lahaa haddii aadan dhib u arkin ii sheeg dhaqso maxaa waaye waa mahadsan tahay adiga ma waxaad mooday haddii aad iga qariso aniga marnaba inaanan ogaanin inaad si dhaba ii jeceshahay jacaylkaaga ma xumo laakiinse waa soo dhaweyn lahaa haddii aan firaaqo u heli lahaa aniga sideedaba jacaylka iyo waxyaaba lamidka ma xiiseeyo nolosheedana waxyaabahaasoo kale boos uguma banaana sheekooyinka jacaylka meeshay ka bilaabdaan meeshay ku dhammaadaan ma sheegi karo nolosheedana waa mid halis ku salaysan adigana nolosheeda aniga darteeda inaad u baabiso waa laga fiican yahay qof ku farxad geliya waad helaysaa maadaama aa hadashay aniga ma hadli karaa waa hadli kartaa ugu horreyn arrimaha walaalka iyo adiga idinka dhexeeya aniga waxbiga ma quseeyo waxaad nii dhahda farxaddaada meel kale waa inaad ka raadsataa laakiin dhibka jiraa wuxuu yahay noloshayda iyo farxaddaydaba adiga ayaan kuu hibeeyey adigana kugu farxad qabtaa adigana waxaad leedahay farxaddaada meel kale ka raadsa sideen oga raadsadaa adiga ayaaba farxaddayda ahe waxaana rabaa sidaa aniga kuu dareemaya inaad ii dareento adiga wax weliba waad ii sheegatay laakiin iima sheegin alxaasil adiga wax weliba waad ii sheegatay laakiin ima dhihin kuma jecli middaas ayaaba igu filan كورن يا ابو بيلا بيلا ولا اركا هذا ورقه اخرى وكادي بل اي صح ماشي جيمك واد سو اركت ماشي لبعضنا واتن اوكي كمل جي بي اس كان اسكو خيران سي ان كوركا لا سocdo اوكي واي مeel walba joogta anaa ogaanayo ay abo wajada ano wajida dibas igu shido اوكي سوغويا اسكو رهنا وايها النبي أدوح كلا وخادن مسك حلال فكرتان قوله قفتان صاحب له وصاحب عادل صاحب عادل والإصلاح أساس ديك القلات سوي سوا كوجيدا دب ملا وجيجين نيد بس عليكم السلام صاحب أي خو ما سن هيا بايد maxaan ku qabtaa walaal waxaan rabaa in isdiiwaan geliyo dib ma laha 5 kuna dhiibay marka ugu horeysa bil walbana 3 kuna dhiibay law ka dib okay waa ogolahay okay waay soo dhawaad waan dhawahay waay waad mahadsantahay qofka aad raadinayso oo gacantana taatuuga ku leh halkan ayuu joogaa kaalimo okay ma sent hadda ku soo dhaqsee beleza igrale
war adiga maxaa samaysay may walaal iga raali noqo uma jeedin alaabta meesheeda ku celi ya war adile ku xijay dhaaf halo gabar ayaa soo daba joogta waxaan rabaa inaan keeno ilaa warshada qadiimiga sidaas la socda سو isgaadgaad kringe orkiya miyaa qobtaan caadi maanay iga raali noqdo abo unaka maan loogu talagalay xaflad miyaa maanta ka kaca lagu dhaawriyaa hal telefoon haya sida caadiga ahayd waxaad rabtaa soo maaha inaad saaxiibkaaga wacatid oo halkan ku yimaad oo ku badbaadiyo waad wacan kartaa dhib malaha ha ku badbaadiyo fursadaas waan ku siinaa laakiin haddii uu imaan waayo saaxiibkaaga ogow hal marle iyo galow inaan wacdo waa ku baryaa waad wacan kartaa dhib malaha haddii saaxiibka uu ku imaan waayo anaga kule ogow anaa telefoon camal ku wacay fursadda aan ku siinay adiga iyo anigaba dan ayay noo tahay waa 2 daqiiqo gudaheeda keliya saaxiibka haddii uu ku imaan waayo ogow adigoo dhan aniga ku lahaanaya ka faa'iidaysa fursadda aan ku siiyey waayahay ay maxaa ku helay telefoonka ma qabla ay saaxiibkaaga maya mashquul waayo hawlii wuxuu ku mashquulahaa kule aniga fursadda aan ku siiyey way ku dhamaatay hadda kadibna hawsheena bilaabanayso 10 9 8 7 6 5 4 6 وريا يا تاي gaay haddii aad tahay geesigayga waa kan laba daqiiqo inaan kula hadlaan rabaa war ninkii naftiisa nacwaan ogahay aag libax buu soo galaa maantana kuma dhaafeena albaabadan oo xirninkan waa kawaanaynaa aan ku dhahay hadhow amaad weysaan meelaad ka baxsataan ilayn aniga igama baxsan kartaan amay adigu kugu adkaataa meelaad ka boodda aniga sideeda ma jecli qof inaan kawka siiyo laakiinse qofkaan u gacan qaada caadi ma noqdo hadda 2 daqiiqo ma siin kartaa
walaalo waa ku baryaa nafsadaada ka nax taydana ka nax dadkan halis waay aniga adiga xataa waan isku yaa ka hadlay hadayna isku arkaan marka waa ku baryaa adigana iska bax anigana aan badbaado haddii ay macquul tahay waa ku baryaa hadalkayga yeel taladayda adiga ku anficaysaa joog yaa ka hadlaysaa waxba soo socon waxba iga qaadi maysid nin naga daranaa jiro labadeena waa nagogoynaa waa ku baryaa ifahan hadalkayga ma faanta adiga warsay wax kaayin adiga jinni ma qabtaa war ma joogtid joog waanadayda yeel inaa waanadayda yeesha ayaa ku roon waa ku baryaa garkaan kaa haystaa hadalkayga maqal waa ku baryaa uriyo istag askari lambar ayaan kuu soo diraya waxaan kaa doonayaa walba intuu buuxdo sida ugu dhaqsiyaa badan inaad igu soo gudbiso anad igu dhaafaysa anaa kuu soo gudbina taliin okay waya taliin meeshan waa maasanta waxaan kaa doonayaa warqadda aad ii soo dirtay lambarka ugu wicista badan inaad ii baarto voice mailkiisana aad ii duubto qofkii soo dira ama qofkii soo wacaba intaba okay anigaa jeegaraynaya waa ku maqlaa soo dir 13,041 meel ahaa lagala soo hadlay ninkan okay yaa kala soo hadlay qofka kala soo hadlana kuu sheegaa magaciisa waxaa la yidhahdaa magaciisa waxaa la yidhahdaa ها si fiican ayaan ku hawsha ma la qabanayo ha si wanaagsan ayaa lagu qabanaya ninkan aa u jeedaan oo wasiirka caafimaadka waa nin aad u wajiye badan maskaxdiisana waxay u shaqaysaa sida kombiyuutarkii oo kale markii hore wuxuu ka ganacsan jiray daroogada sidaas darteed ayuu wuxuu ugu soo biray wasaaradda caafimaadka sidii ayuuna wasiir ku noqday daawooyinka dhacayna asaga ayaa dalka soo geliyo siyaasadda intuusa ku soo biirina wuxuu ahaa gaangiistarada ragga ugu waaweyn animaa fadhiisa ku dhahay idraal noqon mudan hadda maxaa u istaagti fadhiisa aho muddo 25 sano aniga dharkayga waa madow yahay laakiin qalbigan ka caddahayaan kun dhar iidaa la iska rabaa aho u sheeg mudano ninkan adoogiisa cisbitaal weyn as dhistay cisbitaalkaas kadib adooga markiis dhintay walaalihiisa la haystaan dhaxalayna ka rabaan aniga laakiin walaalihii wax ma igu lahaa meeqaysiye yaa ani meeqaysiye dinkaa dhiciyo aniga 50,000 aan ku siinaa dadkaas lee meel iga saar ama dhukulo hawsheeda dhag ma aho aniga weligay ma biloobay ya walaalkeyna maxaa meeshaan keenay adiga wax ku keenaya aniga halkan i keene ninkaanaad rabtaa inay igu dalbato soo maaha adiga doonaysa ninka inaa ugu dalbato war adiga waaye waxaa doonaya aniga inuu dilo maya adiga waaye maya adiga waaye adiga waaye madax balaaryaal waxbaa ii madax balaarnaanina lamadiina kaala soo fadhiista sax waay fadhiista socdo باي مسوق راعتين كافيه وكين كافيه كين ورياضة سان ما انفعايو بقول كيف سقاش هدي هذيك خالد انا ما حنو يرايو يتوس وريا هوي ما دو كل اكتس انت ايمانك هوري ولا فكرها اذنك انا اسحلسينه لكن انا هدي ايمادين دانيركي اوكي الله قشتي انا wax walba way dhamaadeen anigu waxaan u imid inaan taajiro hadiiba adiga boqolkiiba 9 lacagta aad qaadatid aniga seen ku taajira wax walba adima asla rabo midda suuragal ma ahayn madhukulo isku noqo tan ma suuragalayso warkeyga haddii yeeshid guryahaaga waa badbaadayaan
haddii kale iidan ma iidaysid maadaama aad badbaaday hamoodin shiishkayga inuu qaldoomay haddii aan doono wadnaha waan ka yaa ii ahayd ada ii sheegbe aniga qofkaan ahaadaba waxaan satyam walaalkiisa inaa ahay dilka walaalkaygana adiga inaad ka dambayso see ku ogaatay walaalka ani inaan dil waryaa dembi bee maad dushiiga saaraysaa dilka walaalkay markuu dhacaya daqiiqad kadib lambar ayaa ku soo wacay lambarkaas markii aan baaritaan dheer ku sameeyey waxaan ogaaday dilkiisa adiga inaad ka dambayso balse hamoodin inaan kaa daba haray raadkaaga ayaan ku taaganaya caddayntina waan hayaa noloshaada aniga ayaa soo afjaraayo wayna kuu dhammaanaysaa goordhow inaad iiga badbaadana ha ku riyoon markaas kadib kabtan raam waxa uu bilaabay ciddii ka dambaysay dilka walaalkiis in uu mid mid u ugaarsado rag fara badan oo dilkaas ku lug lahaa waa uu soo laayay kuwo kalena hadda ayuu ku raad joogaa waxa uuna rabaa qofka sida dhabtaa uga dambeeyey dilkaas inuu gacanta ku soo dhigo haddii ay noqoto dhanka magaca hadday noqoto dhanka awoodda haddii ay noqoto dhanka ganacsiga haddii ay noqoto dhan walba hal qof ayaa magaalada ugu sarreeya iga qabo teleefonka iga qabo ninkaas awooddiisa waxay gaarsiisan tahay dhul saxaraa haddii uu gacantiisa geliyo xataa inuu biyo ka soo saaro waryahoy ma ogtaa wax meeshaan ka dhacay maxaa dhacay war ninaa minikeyga igu soo weerara waryahanihoy ma ogid miyaadi yaa waaye ninkaas satya murti walaalkiisa waa kii raam la dhahayo waayo oo askariga ahay dhammaan shirkadaha shaaha oo dhan maarayntooda iyo maamulkooda hal qof ayaa iskale waana amruud shaah maanta kadib middaas ma dhacayso gurigaada inuu yimaado iska daaye tallaabo xataa xaggaada uma soo qaadi karo boota ma la rabaa diidinya u soo dhaqso intaasoo keliya maahane madaxda dalkoo dhan asaga ayaa gacanta ku haya dadka gumaysiga ah oo ingiriiska dalkeenna ka baxaan ma doonayno dadkeenna iyo dalkeenna labadaba waa isku filan yihiin walaal ninka iskool gudihiis ayuu ku jiraa sidaa la socod walaal ma ahe waryaa raadi ninka meesha ku kabiyaan ku dhahay aniga magacayga waxaa la dhahaa riito waxaana i dhalay satya murti hooyadeen waxaa lahaa anuuraada waalidiintan waxay jecel yihiin carruurtooda mar walba baari inay u naqdaan aabbahaygana hal erayaan ka xasuustaa wuxuuna dhihi jiray beenta ah shalay u baa runta shalay muu baano teeda kale aabbahayga mar walba wuxuu isku dayi jiray wax wanaagsan inuu sameeyo anigana aabbahayga aadan u jeclayn mar walba waa xasuustaa aabbayaasha hadda jiraanaan waxay ku fiican yihiin sida aabbahayga oo kale inoo naqdaan laakiin waxaa aad ugu xumaay aabbahayga hadda manala joogo anigana markaa weynaada waxaan jeclahay sida aabbahayga oo kale inaan naqdo oo dadkana wax u qabto beentana dadka ilaaliyo wanaagana dadka aan baro taas ayaan jeclaan lahaa idinkan aadaa u mahadsantiin waana idin salaamaa gabadhan adiga maa dhalayna ninkan ayaa adeer u ah ninkan ninkaaga miyaa ii sheeg meeqa ciyaal ayaa u haysaa ii sheeg gabadheeda eedda waxba uma haayo hadda leeba bilownahay aniga da'daada markaan jiray 4 ciyaal ayaan u dhalay ninkeyga waxaa loo baahan yahay inaad dadaashid oo dadaal muuji markaas kadib hooyo ayaa noqonaysaa maamada been ayaan kuu sheegay ani weliba leema guursan hadda haddaa been ii sheegto mar kale ayaa isguursanaysaan taasna barbaleen mala gabadheeda dadaal ilmaha kuu dhalan doona ilmo qurux badan ayay noqonayaan gabadheeda باي باي nin military ah hadduu doono wuu ku shiishi karay laakiin sidaas ma uusan samaynin maxay ku dhacday inuu ku toogan waayo waa run markuu ku dhahayay
waan ku tooga karay laakiin sababta uu adiga kuu daayay maxay tahay ulujeedka uu annaga naga doonayo sababta uu sidaas u sameeyeyna maxay tahay dad kale amay qorshahan la wadaan xogtiisa dhabta waa inaan ogaanaa waxaa dhici karta inuu doonayo inuu aniga isoo gaaro kabiir iwa wac waryahay cabdulle war ma haysaa meel ayuu fadhiyaa shaahna waa caboohaya ya maankaalas cunaya shaah iyo maankaal waxaad sheegoya shaahs cabooya yaan laga harin hala dabagalo qorshuu damacsan yahay qorshuu damacsan yahay war telefoon dir cabdulle maxaa kugu dhacay gujisa keelka ma qabo hooyo war ii dhib dhaqso wac halo haasoo ii dhib kabiir war dhaqsaan ku leeyahay meesha ka tagaan ku dhahay faahfaahin kuma sii karee soo laabaan ku dhahay dhaqso annaga ayuu isgaadgaad nagu hayaa wuxuuna doonayaa sirteenna inuu ogaado laakiin middaas ma u suuro gelayso dharkan tabal miyaa mase ada askaleba ma kabii adiga soo xadi dhaadilen soo xadi gabarta maanta I love you len dhahaan asxaab I love you kudhe madax balaari oo shibbe abi nandini abi waa imaanaya fadhiiso okay I love you moy ساعة وجهك دول روبك دي وايو أكا نيو ماشي أنت يكوده وهي تري مدح بلاركي صاحب كاغا مو وسلا وتك تضوات الخفوضة هالخلق سيحتين أنا نام كجري ماشي أو كمان حدين مشكت رالي نقو ولال يا ما عم بدن دك در أيون نندني ما لو ده طالمات ما تاه دك ودنا هاي دك ليه قوة مقعدة نندني مياه أها أديكني راتش يس خاصة شيء وده ويدش ها شنطان بقول هاف عمبولك وصاعن أدي هويو أنا أكتي أجوجي تكلمنا يا أخي ما عن معه بدش يشكى ما عن وبدل أسك براج من لينه قبرت مي خذنه تنن خذها أنا نسوي ما على الدرن مشان مقطع أدي عادي ويكون أدي بح عمبولة ضعون إسك هويو وكتوجا إيه أنا يدي خلبي أن لا هاد عمل هذا خرص غيره كويس سؤال بلارياو سوي لك دي روبلي دعايو ايوه ناش كينس كهلاوا يا وجهك الصمر مدح بلار شبه ورا هوشي وين مدن واي anaga ka howlgaleyno
kuu keenaa وريا ايه فور حركه maxaad samaynaysaa kumaase tahay ii sheeg waad og tahay qofkan aniga ahay iyo ulijeedkayga wuxuu yahay oo maxay kula tahay adiga inaan kaa cabsanayo war mala socotaa walaalkaa nin ciidan ah asigoo ah ayuu wax iga qaado adigana meeshaanaad waxaad la soo fadhiisaa inaad wax iga qaado bacaad cidlaad qoor sagaara ku haysaa saaxiib haddiiba aad diidtay dantan kaa leeyahay inaad ii fududayso noloshaadu maxay qiimo ka leedahay agteeda waad dhimanaysa وريا سيدي مركوري معرفتها مركوري سوستك سوستك ايه وكاد مركوري وحول باني قاعد كل شيء قاعد اوكي هايدي لو قال مي وكوريا وكوريا هايدي كيف بس معك هالي يعني حسي قربت مركي لي بس وكوريا سيدي sheekadan waxay ka bilaawatay darwalkii reerkiisa isgubeen walaalkan markaas kadib aad ayuu u xumaaday wuxuuna bilaabay cilmigiisa inuu adeegsado si uu arrintan ugu salgaaro markaas kadibna caddayn fara badan ayaa u soo baxeen wuxuuna sameeyey dhakhaatiirta inuu soo bandhigo sidaad og tihiinba waddankeena dad fara badan ayaa ku nool weliba masaakiin ah waxba aanan haysanin dawana u baahan waxaa dhacda mararka qaarkii cudurro guud ayaa ku dhacay cudurrada guudna markaan idiin leeyahay waa cudur qof walba uu ku dhacaa annaga haddaynu dhakhaatiirnahay cudurradaas oo kale waynu baarnaa kadibna waxaynu raadinaa daawadii lagu daaweyn lahaa daawada markaynu soo saarnana waxay noqotaa daawadaas mid magac gooni ah leh waxayna noqotaa daawo aad qaali u ah oo dadkaas masaakiinta aysan iibsan karin awood ay ku iibsadaan aysan lahayn cudurradaas aan idiin sheegay mararka qaarkii dadku waxay ugu kala dhacaan si kala duwan qofna aad bay u saameeyaan qofna si fudud marka waxaa jirta nidaam aan aniga sameeyey oo aan ugu talagalay daawooyinkaas in loo isticmaalo marka waxaan ku qasbannahay bishii inaan soo saarno 1.5 milyan oo dawo ah dawadaasna aan suuq geyno meeshii 60 kun laga iibsanayn 6 kun aan ka dhigno si dadka masaakiinta ay ugu fududaato taas دكتور غطغطة دي هذه أساس داود ورخيصة أنا محاكي هلنا مركي شكل أنا كهلد إن أنا كفكر معهن ولا صعطان دخاتيرت وقول قالس إن أيا ودن كينا كونول جندن مال والبا أيا لوجو إماذا سي أخون كرسي لوجو سمين جبان مريكان الدنيا مال والبا أيا لوجو إماذا سي ودن كود مركي يقول لابتان أي واحد يقول قبصدان وهذا دكتور وحيدو يسامي الدنيا معناها أنا أقول صوصاريس بدن داود أنا كذا دي أنا عن صوصارنو ودن كينا محاودي دي هذا فيري لوضو كوني سددي إنديا أستراليا شر أي قلن
shirkaasina waxaa laga soo saaray heshiisyo aad u fara badan heshiiskaasna warqad oo keliya ayuu ku koobnaa waxay noqotay marka daawooyinka in dibadda laga keensado dibadda haddii laga keenan canshuuro fara badan ayay u baahan yihiin marka waxaa lagu qasbaya farmashiya haddii aad tagto daawada inay qaali noqoto madax xanuunka iyo qandhada in qofka lacag qaali ah laga siisto kaniiniyaashooda balse waxaan ku qasbannahay in annaga aan is aruursano kambayn weyn aan samaysano kadib daawooyin aan soo saarno si waddankeena ay wax ugu taraan dadka xitaa baadiyaha joogaan ay faa'iido u noqoto lacag yarna ay kaga baxsadaan daawadaas bal ka waran arrinkaas baraawo calayk arrintan diyaari wax walba anigaa dhammeehay shaqa ma ku leedataad igu soo wareeji marka markaas kadib wasiirka caafimaadka barnaamijkii waa uu ku guulaystay howshiisana sida la rabayo u qabsaday ha walaal wax walba wasiirka caafimaadka ayaan ku wareejiyey abo walaalka isaar maxaa inta liigu yeeray meeshaan waxaan kugu wacni doctor khoto sheekadaas iyo projectorka dhan adiga aad wadid iska kansalan ku dheh ya warkayga si fiican u dhegayso kambani waaweynaan shaar la galay ani keligayga ma cunay abo adna waa ku cunsiya cambuul cuno waa ka baxay war mala socotaa wasiirka caafimaad dad kuu doorta ayaan ka mid ahay aniga rajo ayaan kaa qabaa marka rajo beel ma digu ridaysaa mudane adiga qalad ayaad iga fahantay aniga waxaan lacag dartooda uma samaynayo ee bulshada ayaan ugu danaynayaa middaas waa inaad ogaataa ma jirto shay anaga aanan iibsan karin wax walbane qiimo ayay leeyihiin imsaa kugu filan adiga afkaadii oo ku ciilan qiimahan aad aniga isoo hordhigaysaan soo kama wanaagsana shacabka inaad ku deeqdaan sidaas darteedan ducaa ku hesha waxaad arkaysaan family kala daadsan waxaad arkaysaan carruur iyo waalid kala tegey waxaad arkaysaan wiil iyo walaalkiisa kala fogaaday taasina waxaa sabab waa ma taqaanaan wax kale ma ahan daryeel xumo ayaa jirta daryeel haddii la heli lahaa wax walbaba way hagaagi lahaayeen dhibkana wuu yaraan lahaa laakiin hadda waddanka waxaa ka dhacdo qofka markuu qof ka xanuunsado meeshuu ka daaweyn lahaa wuxuu is leeyahay beri ka maalin waa uu dhimanayaa lacagtan adiga meel iska dhiga way ku anfacaysaa bravo waad ka baxsatay dadka faa'iidadooda waad ka hadashay adi faa'iidadaada ka hadal aniga faa'iidadeedu waxay tahay inaan wax wanaagsan sameeyo doctor bojo waxba daacada iska dhiin daacadnimadan waxaan ka cabsaa inaad ku tuugsatid haddaba ka fikir go'aan agaari wax khaldan markaad samaynaysa ayay fikir u baahan tahay laakiin wax wanaagsan fikir uma baahna aniga hawshan waan sidaan idiin sheegay dhakhtar ahaan ayaan u qabanayaa go'aankaygana waa kii hore mana laga yaabo mashruucan inaan bedelo waanu ku howlgalaya haddaba la soco dictor hawshan haddii aad hirgeliso dhibaato ayaad kala kulmaysaa waxaan diyaar u ahay qashinka inaan iska leexjiyo isku day adiga nasiib waa tali akhbaar xun ayaan ku hayaa ninkii doctorka ahay wuxuu sameeyey waxyaaba annaga caqabad nagu ah oo weliba na dhibaayo nagana soo hor jeedo waa inaan ka hor tagnaa markaas kadib walaalkaa wuxuu diiday hawshaan inuu joojiyo annagana dantu waxayna badday nin xabsiga ku jira inaan dibad u soo saarno si uu asiga uga howlgalo howlaheennana sidaas ayay noogu fuleen wax walba noogu hagaageen guryaa istaag walaal waa la isku yimid war saa u soo socota gurigayga baa iigu tiri walaalkaa markii xabsiga laga soo daayay kadib oo weliba damaanadda lagu soo daayay annaga waxaa isdheheen xishood dartiisa ayuu magaalada ugu baxayaa balse muusan bixin habeenkaasna waxaa dhacday braawo calayk kan ay guddoomiyaha guddiga daawada seetaay malafaayo daraska maroono qaraabada say ahaayeen cis ii sharaf maa kuu yaalo horta ii sheeg ba adiga gadaal ma u hesha shaqadaada mise wili waxaa kuu dhiman ii sheeg bay adiga waa macquul kursigayga inaad iga wareejiso balse ma laga yaabo maskaxdayda aqoonta ku jirta inaad la wareegto aniga weli waxaan ku taaganahay mawqifkii shalay projectorkaygana waan fulinaa isdeji bacdi madaxan balaarka ii luluxin aniga ilaa ii hadda adiga wax ahaysid ma leh waryaa hooy waa ku xeri aniga kambaniyaalkiid furileed iyo projectorkaagaan jooji weli adiga madax luxoole maa ku jirtaa madax darbaalyahow waryaa hooy waxaan istaa ceeb dartiis xamarjab uu guuraa wiil miyii degan tahay satiyaa murti yaakhay isdhiibniyo awooddaada dhan waa dhammaatay meeshaan annakaa u talini ma ogidoo adeer waxa u taliyo mahama warkaaga adiga waxaad doonta iska sheeg awooddaadana ku faan laakiin ballan waxaan kaaga qaaday maxkamad inaan kula tiigsado
oo arrinkaaga ilaa heer dacwaa afbalar ambul lagu cuno wax ma taraay maxkamadda cadeynay rabtaa cadeyn ma haysaa ii sheeg ba adiga intee ka keenay adiga waad baqbaqlaysay laakiin warba uma haysa maxaa bay in wax walba adiga ku hadasho inaan duubayo ya taas ayaan caddeyn ii ah wasiir maxaad la aamustay aaway xamar jajabtay aa sheegay shibne waxbaa joon imod caddeyn igu filan agteeda waa liila fadda bax nasiibkaaga marka ya aduu kulo markaas kadib go'aan wuxuu ku gaaray walaalkaa kow in laga siiyo uusan dunida sii saarnaan dictor run ahaantii adig yaa ku dhaawaa duqowday keliba ayaan ku tusinayaa xaaskaaga dhabarkeed muu jeedaa barti ku taalo dukumentiga caafimaadka aad ka diyaarisay haddii aad nagu soo wareejibaysa waxaad la socotaa adiga keligaa ma aha macal reerkaaga inaad baabi'i doono marka dani waxay kugu jirtaa inaad nagu soo wareejiso haddii kale dictor diskayga daatada ku jirto adiga waadna siisay balse su-aashu waxay ka taagantahay inta maskaxdaada ku jirto sideen ula baxnaa micniga sidee nagu soo wareejinaysa kaligaa ma dhimanaysid borjeedkaagana waa uu kula dhimanayaa oo baabaha ayuu noqonayaa bini aadamka waa uu dhintaa laakiin runta ma dhimato adiga sheekadan waad bilowday laakiin raamkayga ayaa dhammaystiraayo هلو كبير شو هذا يا إله الله ma waxaad ka baqaysaa magacayga inuu afkaaga soo maro كابتن رام waa haysaa aniga waxaan ahay beebii businesskaaga baabi'in lahaa abaabiina براو نوع هذا كله بوتينا هرم سو أرك noocaygoo kale ayaad soo aragtay laakiinse aniga weli ima arkin dumaashi dadka way dadaalaan si ay noloshooda horumar u gaarsiiyaan laakiin walaalka meesha horumar ka gaari lahay ayuu isdilay muxuu sidaan u sameeyeyna maxaa dhacayna raam maxaa samays waa maxay dhiigga kaa socdo yaqi waad fududaat ii kaadi maraan keenayaa sidaan odha inaad samayso ma ahayn maxaad sidaan u samaysay faashadaan kuu soo raadinaa halkaaga joogyaa raam waan dareemi karaa dhibaatada ku haysato iyo xanuunka aad dareemaysid laakiin walaalkaa sidaan kuguma soo noqonaayo dumaash mid ayaan kuu sheegayaa adduunka waxaa ugu muhiimsan 2 maalmood maalintaa dhalanaysa iyo maalinta maqofkaaga aad gaarayso horena waxaad ii tiri dilkan iyo dagaalkan haddii aad samayso walaalkaa inuu sidan ku soo noqdo lagama yaabo laakiinse doqonnimo haysa darteed inaan walaalkii cadowgiisu sii daayo mid iga suurtaabado maaha danaana sideeda waxay ku soo degtaa da'da kaa yar markii lagaa dilo
cabsida noocan oo kale indhihiin inaan garko ayaan weligay u taagnaa tani waa barsamaynta oo keliya filimka dhammaystirkiisa weli waa baaqi midda kale laba mid ayaa nacbaa qofka dalkiisa khayaanaya iyo qofka ciidda hooye khayaanaya labadaasna nolol inaan ku sii daayo marnaba ma cadaysan walaalkii haddii aad disheen noloshan aad dhaafiseen taa micneheeda maariyadiisa inaad burburiseen aniga ayaa u dhumaysta maxaa samaynay walaalkii haddii aad guriga ka waaysid taa micneheeda soo maaha awood walba inaan leeyahay wax walbana aan kaa samaysan karo ma la socotaan qofka aad cadaawadda ka diyaarsateen walaalkiisana aad ka disheen inuu cadowga xuduudda kala dagaalami jiray noociinoo kalena inuusan marnaba u jixinjixaynin shiishkaygana marnaba inuusan qaldoomaynin haddii aan dooni lahaa mar hore ayaan idin toogan lahaa laakiin waxaan doonayay tanoo kale inay idinku dhacdo cadaawaddan idin qabanan aad dhadhamisaan geeridana ay noqoto mid naxdin leh wax badan waad soo boodboodeen waadna soo baashaasheen laakiinse boodboodkiina hadda aniga ayaa dabka jaraya dabla'aanaa idin dhigaya soo hadal raab ali waxaan soo ogaaday walaalkii dadka dilay iyo siyaabay u dileen iyo sababtay u dileen intaba raam xanaaqaada waan dareemi karaa aniga awooddaadana intay la eg tahay waan la socdaa laakiin tallaabo qaldan inaad qaadidaha isku dayin waa inaad is ogaataa waan ku baryaa adigan kuu naxa okay lama filaan dhalasho wacan raam maasanid dhalasho wacan walaal asigana maanta dhalashadiisa miya laakiin sanad walboo la gaara dhalashadeeda mooye mid kale maba bixiyaba soo bax tortadaan goonaynaahe nakeen hayno dhaqsihay soo bax ma imaanayo adiga haddii aadan ku qanacsaneen xataa dadka xalfadda joogo farxadda la qaybso ma og tahay aniga mar walba guul inaan raadiyo laakiin xilligeeda waan gaari doonnaa balse walaalkayga dhalashadeedu imaan waayo dhalasho damba ma dhigan doono gabadhayda maxaa ku helay oo dumaashay sidaa tahay waa warey iyo waranaysaa tahay adeer saan maxaa ka wada adiga maxaa dhahay lama filaanka maxaa ma imaanayso ma dhihin farxadda lama filaanka war xilli fiican ayaa timid haddaadan imaan lahayn walaalkaa wuxuu dhahay xaflad dhiga maayo waa asigii gudaha ayuu ku jiraa gudaha ma ku jiraa hadda anaa 2 daqiiq ku soo saarayo ma soo bixin kartid 2 ilbirqsi ayuu ku soo baxayaa fiiri raam Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear bhai. may basigadha waan dhergi intaana igu filan haya adigana weli ma dhergin miya
ها وارون وادرقي بس وانت انا اقول فيلم haye labadiina walaal maxaa qorsheanaysaan غبا maya adiga amsi waxbaa sheegay هيا aniga xataa waa dhargi maya adiga wax cunaya qaysida wax ka yiin raashin golasha ku gurto ma ka soo tagaysaa qorshaha leedii maxay tahay oo walaalkay aduu reebaysiin ii sheega ما قص بليش maya anaga دمشق aniga ha warkan waayno wax badan oo waa inuu ii sheegay saas darteed u baxno ha iga tagana isa adiga inta iga socotaan raashin ma igu dilay waa dhargi aniga bis iga dheh ha isku daldal kuwa meeshaan iga tagaan ani anigii walaalkeen weligeen kala ma fogaan laakiinse maanta marxaladda aan ku suganahay fiiri dunidaan ku cidlooday iska sabra ha halow maruntaada dumash maxaa kugu dheh dumash waa anigi ram ha maxaa kugu dheh kuwi hee maxaa dheh ritua maxaa ku dheh uskuraan lahaw yaa annaga ciyaalka inaan wax u geysana ma rabno sababtoo waa jecelnahay laakiin waxaan kasii jecelnahay waa sharafteenna ma iska dhaaftiin waa ablaan iska dhaafo waayahaye raam muxuu garan la'yahay dhibka loo geystay walaalkiis annaga sidaan rabna haddii samaysiin waa naga badbaadaysaa hadda maxaan sameeyaa ii sheeg bravo wax garad ayaa tahay wax yar ka bacdi hal saac baabuura imaha gurigaaga hortiisa raam iyo macal cadeemaha inas baabuurkaas soo raaca waay haddii soo raaco shil damba ma dhacayaan ku dhahay gabadhaada iyadoo nabad qabtaa mininkaaga la keenaa haddii diididna ballan waayaan ku dhahay qorsagaaraan ku dilaa gabarta intaasaan ka rabnaa raam u sheeg waa naga badbaadaa sheekadana meeshaan ku ekeysihiinaa shil aan ka dhigaynaa haddii la rabo rito way soo laabanaysaa raam haddii aad bacdid ina soo noqonaysa in kaleeto rajadaas yaa siinayna dumaash shakhsiga caadiga ah markuu gurigiisa ka tagayo soo laabashadiisa waa lagu kalsoonaan karaa laakiinse qof militariga ka tirsan hadduu gurigiisa ka baxo inuu soo laabanayo in kale lama sheegi karo maxaa yeele qofkaas militariga wuxuu u taagan yahay dalkiisa iyo dadkiisa mar walba inuu dhibaatada ka ilaaliyo laakiinse aniga hadda waxaan matalayaa familkayga waajibaadka iga saaranna waa inaan u gutaa siday tahay marka dumaashi ha ii cabsi qabin gabadheeda anaa dib u soo celinayo adigana haddii wax ka dambeeya dhibaato inaad la kulanto lagama yaabo booska dumaashinimo iyo booska walaalkay aniga ayaa kuu taagan niyaddaada khayr u sheeg anigana waxay ma gaarayo gabadheeda rituun wax ma gaarayaan waxaana kalsooni buuxda kugu siin karaa gabadheeda rituun iyadoo caafimaad qabta inay guriga ku soo laabanayso mar alla markay soo laabatana baashaan ayaad gacanta ka saaraysaa dalkeena si kastoo u xumaado waa dalkeena waxaan noobaa gabadheeda maalintay weynaato inay sideedoo kale noqonayso dalkeeda iyo dadkeedana difaacayso ilanta baan iska yahay dimaashi
baari ani waa ikana waa ku imid hay maxaa la wadwadi meeshaan ii sheegba maanta maxaa waa sheekada idinka ashuushu leedihiin war fiiri hoy warkaas iska dhaaf aniga waxaan isdhahay ninkan markiis ku imaahayo libax camal usoo socda isku imaaha laakiin nyaanyuur camal leeb usoo taagsays weliba nyaanyuur kaadii haysa camal waryaa hoy aniga wax miiga qaadi kartid adiga askari xunaa tahay amarkeygaana qaadaysaa weligayga socodkayga socod libax ayuu ahaa adigana waxaan kuu sheegayaa kibirkan iyo farxaddan waxaa kaa keenay shacabka waa tabatay hata khushaasha ma la dhihi jiro iga dhaaf warkaas ani waa balii doortay laakiin adiga yaa ku dooraha ii sheeg warkeyga hadda si fiican u dhegaysaan ku dhahay adi waa bixi baabuurkaasaa kori shilaa ku gelee baabuurkaasaan ku dhahay adi iriyada walaalkaaga iyo projectorka aawadidaan ku dhahay hal mar hawdiinaa kicisa bum baa dhehaysi nasiibkaa qabtaa yaabay iga raali noqo kabtan warqaddii aan kugu xir lahayn ayaan wadannaa marka waa inaad si dhaqsale nagu soo raacdaa sababtoo ah dembiye fara badan ayaa lagugu soo eedeeyey inakeen ma xuma hadalkiina 2 daqiiqo fursad ma siin kartaan okay dhib male rito inay wax gaaraan ma doonaya sasaan ku dhihi karaa kan maxaa jira balaanka ma isbedeli adiga hawshaada ma ku dhaqaaqday hawsha aan ku dhaqaaqa maxamed ninkan askari oo imaade waxay dhaheen adiga waxa lagu hayaa dembi huwa aa gudbiyaysa alle maxkamadda la geeyoya sabay arrintaas ma isbedeshi aniga arrintaas waxba kama ogi adiga hawshaada wado dhib male intiin gabarta anaga aan haynaba ninkan meel dheer ma aadayaan ku dhahay waa subriga anaga sunu soo naqaha waddankeena cadowga soo weerara sidaa u difaaci lahayd oo kale ayaa waxaa loo baahan yahay borojeedka walaalkaa uu diyaariyey inaad u difaacdo marka waa inaad hawshaas ku dhaqaaqdaa anaad igu ogtahay hindiya noolaad ha noolaato haye maxayse aqbar tali waxaan ku hayaa ninka inuu qof wacday markaad ka soo tagtay waa kana wasiirka miyuu wacay ها وزيرك نفتركيس على تلفونك هذا ما كان قفك وعي مرة بعد أيوك سوى علينا عدكيس هاللي دو أوكي ونكون دوبين هاي واكس تلي مرة بعد أيوك سوى كال أرك يا فيري وزيرك ميو صوع يا ها عدكيس يدوب لوكيشن كنا أنا أوكي تلي فير تلفونك لا يسولعي وزيرك ريما قدان عدكيس وين يدوب أوكي تلي أنا يقول أوكي ها سوقن جوجا ما هو أذيقنا وإيمانا لكن قبلها كبقن أيضا وحن كينا لاب أوكي ويا سصرنا بران أوكي نبذي صاحب قال لي ما تاي وحول جدميا سيح كاي نقطك ووالنتي علامتي نقدر يسي ريتو أبيشك أو ريتو تلفونك قال مركورة حق بنيسا هلو أبو هاي كوارنا سيدان كولا دخمي وريا هوي والغا واي أركسنيا والغا وين يا هاي عبتان كمسكحنا دجاي ونكلا بعبنا به هذه ما عبتا إيشك به وريا هوي اللي باحن أنا شاك هذا سياسي واي وحول بما كفهمي كرتيت أنا جانا إن كاكو وين هاي أنكو تسويا وريا وحين ربع أنكو دخمة وحكو دم ويلي
kaale walaal kaale walaal waan ku xiis maanta waxaad ii caddaysay ey mooye qof kale inaan lagu kalsoonaa karin sirteedana qofka bixiye waa adiga oo keliya waan ka xumahay kun iyo kow jeeraan iri wakhtiga haddiskaa wareersado waayo araggaa loo wakiisha iyo wakhtiga xun laakiin waa iga yeeli waayey nasiibkiisas qabaa ciid hataa ma iidaayo ballanteenu waxay ahayd warbixintuu walaalkay diyaariyey inaan idiin keeno iyadoo dhammaystiran waa idiin keenay qof familkaaga ah markii noloshaada laga fogay xanuunka aad dareemayso aniga waan dareemi karaa hadda dani waxay idinkugu jirtaa inaad gabadhii soo daysa si sahlan inaan kugu dilo lagama yaabo waan ku silcinayaa afaarahayga ayaad faraha la soo gashay hadda ayaad dhimanaysaa kaali kun iyo kow jeeraan ku dhahay kor uga bax arrintayda waa diidii laakiin kiyaawa waxaan eeg ma kugu tumay kiyaawa kugu tumay ilaa filinkaas ka dhammaado ha maxaa malaysa waryahoy aniga inaan kaa heraya waana silax si bacaawiya waryahoy adna waa ku silaxyeen askarinimada ciidannimada waa ku faanayseen adig iyo walaalka asagana waxaas ahay dhakhtaroo ciidan ee adigana ciidan waxaad tiri aniga oo dhulku xureehayan ahay waryaa hungurigayna ma anaga naga carriyaysiin nyaqayganugu siyaastaasha awooddaada xuduudda oo keliya ayaad u adeegsan kartaa annaga maahay waryahoy shirkadahan maxad uma lehoosaa shillimaadan ku furanay annaga daawooyin dhacdi iyo daawooyin xumbo haddiin samayhayna dadka aan ku dhammayhayn ad maxaa kaa kale ii sheegde adigana dhaqdhaqaaqaaga haddiis bato ballan waxaa igu ah waryahoy daawadii lagugu daawey lahay xataa in la waayo tan dhacdii iska daaya ta urti xataa ma lagugu daaweyhayo intaa ku dhimahe waryaa mukula dhimakiyaa tahay faarabuto cabsida shacabka aan ku abuurno ayuu ganacsigeenna ku socdaa adigana middaas ayaad ka soo hor jeeddaa anigas midlayma tusi karo wax badan oo marar badanna igu soo laabto aniga waan necbahay sidii marwaxaddii oo kale hadda ayaan kuu dhammaynayaa libaaxa libaaxa disduqooba nyaanyuurada ku dheelaya ma ogidoo waryahoy anigu waxaan isdahay libaaxa tahay laakiin ma tihidaan ku dhahday nyaanyuura tahay nyaaw nyaaw dhaliyaa tahay waryaa lamadayna mana taqaanaa hoy walaalkaaga annaga u dhammayni hadda adigana waa kuu dhammayhaynaa inas isdili unu kale ka dhigni kabaranhay annaga waa kuu dhammayni waryahoy ma cabsaysid maxnaaqaysid haddii aad doontaan idila laakiinse gabadheeda rituu sii daaya waxba ha ku samaynina waa idin baryaa rituu kulaa tuka kan inaan tunna xataa ceebay nugula qeybay iska day meed waay meed maxaan ka garaacinaa iska day yaa khay faraagka qaadkan day usaa dhintiyey waryahoy u dhammay toos ugu dhammay bacawga day
wariyaahoy xabadaha dhan ku dhammeey ha ka baqiilina ninka nyaanyur waa dhahile maahane aniga libaax waaye ninka ma taqaanin waryaa u dhammeeya aabbaha libaaxana bajoonka see ahaane 10 ilbiriqsilanka maqnan ciyub mala cuni dadka libaax haddii uu aamusay taa micneeda maaha inuu baqay ee idinka ayuu qorshe idiin maleegayay waxaan aad arkayseen oo dhan matal ayay iga ahaayeen waxaanna doonayay sirtiina adduun weynaha inay wada daawadaan taasna maanta way ii hirgashay wayna daawadeen waxbaan idiin sheegaya hadalkayga si fiican u dhegaysta annaga militari haddii aan nahay waxaana loogu talagalay xuduudda inaan ka dagaalanno cadowgana aan waddanka ka dhicinno shacabka waddanka ku noolna si raaxa leh inay ku seexdaan laakiinse ciddii isku dayda militarigaas xuduudda ka dagaalamaya ciddii wax yeesha inay nolol ku sii badbaadayn hadda waxaad u haystaan gabadheed inaad haystaan soo maa baara dadkiina wacda laakiinse cid idinka qabanaysaa ma jirto uma dulqaadan karo kumana fiirsan karo cadow dalkayga iibsanaya waadna la socotaan haddii aadan ogayn anaa idin sheegaayo maxkamadda militariga marka lay waday aniga qorshe aan watay ayuu ahaa ma ahayn qorshe idinka aad ka dambaysaan qorshaygana wuxuu noqday mid hirgala mar walba waxaanu taaganahay cadowga inaan shicibka ka difaacno nafteena ayaan u hurnaa oon xuduud ayaan ka dagaalanaa idinkana daawo dhacda ayaad dalka keenaysaan shacabka masaakiinta misena ayaad ku baabi'inaysaan soomaa ma idinka yeelay शिव शिव बोलो दुष्ट मित्र हर हर बोलो रुद्र तांडव शिव शिव बोलो ओम महेश्वर हर हर बोलो नीलकंठाय शिव शिव बोलो दुष्ट मित्र हर हर बोलो रुद्र तांडव शिव शिव बोलो ओम हर ओम शिव ओम हर ओम शिव runtaada waxay tahay adduun weyne oo dhan waa laga daawaday walaalkay isagoo daacada oo dalkiisa iyo dadkiisa u dhimanaya ayaad disheen laakiinse dilkiisa meel cidlaha inuu ku baxo lagama yaabo anigaa walaalkiis ka yaraa oo meeshan u taagan una argudayo hadda ii kadibna adiga inaad hawaysato dalkeena daawo dhacday inaad keento lagama yaabo maxaa yeelay markaan nolosha kugu sii dayo sow daawo ma keenaysid oo dadka masaakiinta kuma laynaysid taas inay dhacdo aniga ayaa ka soo horjeedo halo controllerka mii maqashaa dad badan oo dhaawac ayaa meeshaan yaal waxaan u baahnaa si degdeg in ambalaas lagu keeno oo laga soo gaaro weliba waxaan u baahnaa dadka saan yeeleen in la raadiyo degdeg ha lagu yimaado mii maqashaan hadalkayga maqla control roomka imaqla dad dhaawac ayaa meeshaan yaal kaal adig war soo qabo inta ka soo qabo kulli xaray soo socda
mii maqashaan degdeg ayaan u baahanaa mudana raam oo ka mid ah ciidamada milatariga ayaa maanta wuxuu caddeeyay walaalkiis in gardaro lagu dilay gardaradaasna waxay sababtay in mudana raam uu fadhigii ka kocbaarisna sameeyo uu gacanta ku soo dhigay qoladii ka dambaysay dilka walaalkiisa iyo musuqmaasuq fara badan ay qoladaas samayn jireen iyo daawooyin dhacay waddanka soo geliyaan adeer ma aragtaa wuxuu ku maqan yahay meeshii loogu baahnaay ma fahamta fiir meeshaas hadda